1977 Soomaaliya waxa ay dagaal la gashay dalka Itoobiya dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in lagu xoreeyo dadka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya degan oo la magac baxay Soomaali galbeed dadka qaarkiina ay u yaqaaniin Ogaadeniya Soomaaliya dagaalkaasi waa ay ku jabtay kadib markii Itoobiya ay u soo gurmadeen dalka midowga Soviet iyo dalka Cuba siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliyana way isbedeshay iyadoo taliska Soomaaliya uu u janjeersaday dhanka reer galbeedka khasaarihii iyo jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi waxa uu tiiraanyo ku dhaliyay dadka Soomaaliyeed rag ciidamada ka tirsanaya inqilaab isku dayay laakiinse inqilaabkaasi waa uu fashilmay gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo u kabraaratada gumaysigu ku dhunta dalabtada humaanta geedka habo gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo u kabraaratada dagaalkii 77 oo dhex maray Mengistu iyo Maxamed Siyaad Barre ayuu inta noo yeeray wuxuu khibrad baad leedihiin tababar dheer baad leedihiin aqoon badan oo ciidan baad leedihiin ariga wuxuu yiri meeshaad 64 ka dagaalantay oo ah doolo jahadiisa halkaas waa front baad ciidanka xoogga dalka iyo wixii biliis iyo lagu daro iyo jabhadda Soomaali Abow أنا قرأت الصومالي أبو مركب والله يا بنان حياة البانغلية الصومالي أبو بعد ما رحتها إذا كان مركب الله يسكت الدراسة صدق قانوني بوها سأسوأ الدقيقة نجيلات في قد بيسا هالكاسوة من دواقي تلياني قبصة إثيوبيا واللسعيو ونوشيك وحويري انت قال تلياني ومدحناها فرس نوفوري لأنه أنا وحنا لقينا أديس أبابا وعلى مقديش إلى أديس أبابا ولكن ودده ويقي وأنا أقول كلفه إثيوبيا مركي دول ونافتره واحد قال يسابوه يوغريال يقول كيما وربضن ودده إلى مقبرتنا ماله مركز نبي له قوتان وجود بيسان مال أواصل يراه أو ليك اللي هو سيم رئيسان يا سيم رئيسا عيدا كاو الدسبات كونفور كسوق رئيسا الدسبات كونفور كجاي رئيسا ومركز قرشها ويكوتشر تبيله وجيبه إن الدسبات حيت هالجار هذا هو يكوتشر أنا وقعنا وحكومة قرشنا وحكومة لهين هاي أنا وفي أدبان فدي ومركا عيدن كشقيني عيدن كهر يدير النوي ورية كاسنا هل كاسو مركو ظهر يدير النوي قصيد سوق بيا وبيه هو أشوف كسوق بيا وهذا يسوي من يسال ميل سوق مركا مقعد يقيني لواقي ومراي ومقالة أديني قلنا لي هذا هلك خير نحقله sida dad fara badan ay tilmaamaan ama taariikhyahanadu ay sheegaan adigu dabcan xog hoosaad haysa waxa dagaalka loo galayay in la xoreeyo wixii lagu tilmaamayay Soomaali galbeed ama gobolka Soomaalida Itoobiya marka qorshuhu mu ahayn bad leedahay in halka lagu koobnaaday ilaa Addis Ababa absolutely ma ahayn ana la yiri Addis Ababa koonfur ka soo weerar
ciidanka harar iyo dirdhaba kasoo degayaana waxay isugu imanaysaan wadada ka timaada ee koonfur oo markii dambe mooyaale iyo kenya iyo aada iyo wadada harar iyo dirdhaba ka timaado oo waxay isugu imanayaan magaalo aan weynayn la yidhaaho moojo oo aad sababa 70 kilomitir ka sokaysa deeta wada jir ahaan baa la rabay inaanu Addis Ababa qaban anigu waxaan ku iri masuura galba ciidankeena iyo awoodeena iyo marka la eego haddana waxay noqotaan haabi oo waxaan iri dhulku seeya ninka taliyaha ay dhulka iyo jawiga iyo dadka dhulka degan iyo waxaas oo dhan uu ku tushaa ilaa waa dhibaatooyin ka hor iman kara markuu dagaalka galay wuxuu yiri dhulka iska dhaafay saayay waayahay haddii ciidankii hardhiya dirdhiba soo degi waaya see la yeelaya markaas laga tashaaya يعني waxaan arki jiray dagaal hadii la girayo in horta political objective ama ujeedo siyaasadeed state kuleeyahay hadii yiri Soomaali galbeed baa la qabanaya marka ujeedadu waa taa hay'ashay strategically inay suuragal tahay anigu waa ila cusay midda kale dhul weyn oo runtii geographically ku adag ciidankii soo gala bayleeda Ethiopia waxay leedahay man power badan ama shacab badan hadii dhulkii wadankii hada la dirirayso wadan waa la tixgeliyaa wadankaasi suu yahay dadkiisu inuu yar yahay inuu badan yahay inuu ilaa man powerka hadhowto ciidamada laga dhigay iyo dhulku inuu baaxad weyn yahay oo balaaran yahay in kale wala labada markii laga badan yahay hadii strategically inay ku qalcata laga yaabo waliba hadaadan dagaalka yaani bilowga aadan bisha ugu horeysay bisha ku xigtay aadan adkaan oo aadan meeshii lagu cayimay inaad qabatid qabsan dagaalku dheeraanaya markuu dheeraadana ciidankoodu dhammaan mayo intaa wax kuma yar 40 konton iyo maaqa 60 milyan bay ahaayeen markaa Itoobiya inaguna 10 milyan oo qof kulligan marka la isku daro kulli jamhuuriyadda Soomaaliya oo saasan filaya hadhow waa lagu biyo keenaya dii dagaalku dheeraado waxa kaloo yaani suuragal ahayd dawlado kale oo Itoobiya u hilinaya inay dagaalka soo galaan speed baa marka loo baahnaa Cabdisalaam speed in guul lagu gaaro oo shaqtikii loo diray laakiin bilowgii taas waa dhacday Soomaa markii dagaalka la galay sidaynu la wada soconno Soomaaliya ciidanka ay markay haysatay waa ku xoog weynaa kii Itoobiya waayo Soomaaliya equipment-igi haysatay iyo tababarka lahayd aad bay u xoog weynay saraakiil wada tababaran oo staff college soo wada baxay baa ciidamada hogaaminayay furuntoyda ana madax ka ah furuntoy baari qaar kala hogaaminayay harar iyo dirirdabe ayaya marka harar iyo dirirdabe ku dhawaayeen wasiirkii gaashaandhig oo taliyay ciidanka oo Cali Samantar ah oo aanu Iraaqeed oo sarkoosmeedsahay baa runtii ay hoos imanayeen hogaaminayay waxa marka loo baahnaa in markii qorshaha la sameeyay lagu talagalo factories ka soo dhan hadana waxaan u qaatay in lagu talagalay hay'ashay markii dambe oo ciidankii harar iyo dirirda ka soo digi lahaa soo socdaan naga ila waan gaaray laakiin awooda inta ka badan sii socon karo hadii aan ciidanka la xoojin ma haysan ciidanku xooga artillery la socday inta kale infantry waa tanks iyo ABCs iyo dayuurada iyo magaciisi iyo maartay dagaalka kula jiro taageeraya ma jirin maalin qura dayuurada inuu soo diranayo
ciidankii hore iyo dirdhe markuu socon waayey anigu waxaan hindisay war haddii ciidankani wuxuu madaxa loogu garaacayay difaac usan mari karin khasaaro badan baana ku gaarayay waxaan codsaday markaan inaan muqdisho tago muqdisho markaan tagana isaga unba i qaabilayay maxamed siyaad barraa i qaabilayay ilaa cali sanantar wuxuu jiraa kore ya waqooyigu jiraay waxaan sii samaystay qorshe strategical oo macquul qorshe markaad samaynayso aad ciidan tahayna waxaad ku talagelaysaa factories badan waxaasoo dhan anigu oo runtii tixgeliyey ayaan qorshihii sameeyey qorshuhuna dee marna waa qoraal oo waa ribood iyo fikraddaada aada dhiibanayso marna maabkaa la dugeynaya oo warbixinaad bixinayso haa waxay iban diyaarsaday waad iman kartaa baa la yiri waa tegey galab baan soo galay magaalada tayaarad baa dool la igu soo diray yara oo boliisku lahaa laakiin nagele ilaa doolow gaari waan kusoo maray madaxweynihii oo la fadhiya nin sarkaale yaan soo galay oo qu-in soo fadhiisu yiri soo fadhiiso matin haa soo fadhiiso ninka markaa la fadhiyay wuxuu ahaa maxamed nuur galaal oo furuntada diri dhama markii hore madax ka ahay oo laga soo bedelay maxamed nuur galaal marhaash yaan wax ku bedela baran jir waase iga dhalin yaraa iyo gaabna ayaa garanayay ma garanaysaa anigu markaas waxaan idhi anigu waxaan u imi guddoomiye kusoo jeediya haa buu yiri miis baa meesha yiri wuxuu hoos fadhiyaa xafiiskii uu ku shaqayn jiray seexana jiray oo airboortkii muqdisho ku yeelay geed ku hor yaal oo weyn waa miis yari u yaalo waxaa ugu rakiban jalaskii bahalkii may qaylinayay markii cidi uu soo geliya leeyahay geedkaasu garaaca wuxuu iri waad yeeli kartaa bilow mana sheegin waxaan wato markii hore waxaygii baan explanation galay horta riboodkii baan dusha u dulmaray oo akhriyey qaybihiisii muhiimka ah deetana maabkii baan intaan kala bixiyey oo miiska saaray baan iyadana ka hadlay wuxuuna way isleeyihiin riboodka iyo maabku wayna isku yimaadaan waxaan ku iri guddoomiye amarkii aadna siisay anigu waa garanaya aniguna naga ilaan jooga ciidankii hareer iyo dili dhamana soo socon waayo de garanayo difaac adag miyaa ka hor yimid ma wax kalaa dhacay difaac ay mari kara baa madaxa loogu garaacayaa ciidankiina khasaaro badan baa gaaraya dee taasina waxay keenaysaa ciidankii awoodiisiina inay yaraato muddaduna dheeraato muddo dheerna haddaynu dagaalkan ku jiro aakhirka waa jabeen waxaan kaa codsanayaa qorshihii strategicalka ah ee aada dagaalka ciidamada ugu dirtay in wax laga bedelaa maxaa la yeelaa waxaan ku iri ciidamadan meesha aada madaxa ugu garaacaysaan waxaan kaa codsanaya ka daayo waayo mar haddayn guulo dhalinayno hore u soconayno magaalooyinkii loo xilsaaray inay qabtaan ee ahaa harar iyo dirirlebe haddaanay gaarayn oo muddo dheer ay ku qaadanayso inta markii weerar gelisaanba lasoo jebinayo khasaaro badana dhacayo dee ciidanku halkaas waana runtii ku itaal yaraynayaa oo khasaaro badan baa gaaraya waktiguna waa dheeraanayaa waxaana muuqata ciidanku halkaa inuusan mari karayn hadda haddaan la bedelin qorshaha maxaa yeeli lahayd buu yiri waxaan ku talinayaabani meeshaan ciidanka madaxa loogu garaacay hadduu mari waayey ciidanka difaaca la geliyo ciidan badan oo ka mid a oo culus wata ha la soo wareejo koonfur ha loo soo wareejo oo aniga hala ii keeno annagu markaas horey wuu socon karaa
markii taangis iyo ABC iyo dayuurado iyo magaciis iyo waxaas ay taageerayaan anigu Addis Ababa koonfurteeda waa tegi karay runtii laakiin Nageele iyo Addis Ababa waa 600 kilomitir oo lake iyo webi iyo buuro iyo mirana markaan sidaa iray wuxuu yiri ka socod ka gudub weeye yani u jeeda marka waxa kugu muuqatay inaanu talada qaadan anigu taladaasaan soo jeeday wuxuu yiri ka gudub haddaan ka gudbo khasaara iman doontee yaa mas-uulka noqonaya adii waxba kaama gelina ka socday markaan dhameeyay anigu explanationkeedii buu wuxuu yiri ka soco waxaa yeelaysaa sidaa yeeli maynee furuntada aad ka timid ku noqo aniga waxa ii caddaatay ciidanka Soomaaliya guushii laga rabay bilowgii inuusan gaarin waayo ciidankii socon waayay ma soconayo ciidankii anigu aan la joogayna ciidan xoog oo ilaa Addis Ababa yani marka beegsan karayay ma waa tahay sida aad u sheegaysay anigu alaabtayda xirtay waa laabtay صاحبا دجال راعو الدولة وين كده جيو ماشي التلس كي يوم كنوع وحن قرني مدة من الدار على سبيلك وحن قرني راش كأو أيده وراش وكي محمد سياد بريري وأيده من إثيوبيا ولدي من قصة ما هذا هاي إثيوبيا قبضتهم عبارة بسميسي waxaan garanayay inuu dalal kale oo shuucnimo sheegto sida Kuba oo kale inuu ciidankoodii dagaalka soo galin karo waxaan garanayay balaaninka iyo maaragtay hogaaminta ciidamada iyo magaciisa inuu siinayo sidii waa dhacday si difaaci loogu jiray ama kaligay ma socon karo ayaa horta waxaa yimi Kubaanki سيران يمن ومركا حراه وانت وداقيو أهاي خاشية تنالادي يمرشالدي يمرعيس إذا من ليبيا ها كوده ليبيا مارغنو لكن يمن نوحوها خاشية يوم ملاحظوا دي تميدو دقالك إثيوبيا وهو قامين سنة وانهما من جنرال بتروف اللي هذا بقى هوغانكا ملحقة آيو ميل كوري خلينا بدنا وتانجس إيه مقيس إيه جنرال عن هلك كاير نحكوا تاريخ داس وضع الضيسي مركي دمبنا سيدا شيء سيبه وضع ضي سيدا تاريخي أنا ضد القرية صومالي مركي ورجولو وحي قاعد آدو وناكسن مركي دبوا اللي سوتش بي سيدا دي تضباطنكي markii laga soo baxayay Ethiopia ciidanka Soomaaliyeed dib u soo guranayay sidaba ku garowsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre tabaas oo ku qaatay waxaan filayaa ani uma weydiin laakiin waa malayn kara in dawladda saaxiibaha runta u sheegay oo yiraahdeen meeshii intaas dawladood oo xoog ah baa soo gashay Ethiopia ciidamadeeda iyaga hogaaminaya awoodda ciidamada Ethiopia ku dagaalamayaan iyo ciidamada u keenay oo wada socdana iska caabin kara maysan nimanka Soomaaliya inta la qabsan ciidankaaga la bax Algeria waa hubaan isaatay waa huba go'aanka wuxuu gaaray marka reality-ga loo sheego adduunka u sheegay dalalkii saaxiibka u sheegay way ariga dad ciidanna waa la jabiyay waqooyiga waa ciidamadii waa jabeen إلا خسارة بدن بجاري أنا سجالكي مش سجالكي مارش مية سجالكي بروح اللي يري دي بقول شحيل دجال سماه دي بصباح عيان كأرك بريلا كدجال ما معيش كصرف عيان كنت سكري وحكوا سوق لسا حدود الدولة وحنا ديالي سا دفاع كجلالك
وحدك الصومالي دفاع كقشة شن مالمود يشن هبين بنصوص على أنا أقول إلهي الدين ويقال دي وفي الماء يسنو وقال عرس يمقعيهم مشغلين يا دي وقرش الصومالي يسنو الله يسكما يا عيه وحاوي أدي وضق الله ما يا الله عيدا كان دي بلا بحا قال الدفاع أنتو كل شيء أنتو با دي بلا صار شن مالمود يشن هبين كذب بان ciidankii labadii guuto ugu dambeeyey ciidanka baan la socday 15 baan webiga ka yimaada xagga Kenya iyo Ethiopia xuduudooda daawo baarna leeyahay oo Juba kaga daray doolow meeshiisa kaas bridge aan dhiganay oo bridge mobile aan dhiganay oo ciidamadu lahaayeen markaan ka soo talaabay وعن بنك الصومالي يعني إذن كان لو سيور مريض قاعد أمر باسية الدفاع بيكوسي جرا إذن كي إثيوبيا أو سانك يواي الله فصوغ لي حبط بقى مسكو بيلون دي هالكاس عن مسكوها فريسانا يو ما يقود بكرين إلا الدفاع هذاك بنك جخي رنتي لقيا بيني نقبض نايا لكن نقبض حوقراناي قلب أحانا نقبض فيعني ولي halkii annagoo joogna baa waxa ii yimi niman saraakiila oo taliska guud uu soo diray nimanka amar baa la soo siiyey waato anna kama warqabee ilaa markii laga soo baxayay jijiga ciidan badan oo askar ah la yiri rag la dalacsiya keeno oo 80 iyo dheeraad ninba inta la isu keenay oo iyadoo loo qabo nin walba waxa la soo xul rag wanaagsan فأنت اللي سوق أنا يبا ينتهر على لقدري باب كل ولا لا أنت سواء أنت بدل أد لوجه الله هدي أد إن يكون يراها كنو حل لوجه شدي طلابه وحل لوجه شيء إذا ما ضعني هدي أي صوان نقدان وذلك كوسان نقدان يعني ولا بيسكت دي كلام وشدي سماين كلام شعبك ciidanka ciidanka dagaal baa loo diray haddana waa laga soo saaray sidii dagaalka maragtay loo qorsheeyay sidii loo galay magaciisa waana xalad ahay daan ilaahay ka yaabayo hadalku maxamed siyaad barre kaliya ku eedayn maye intii markaa joogtay ee saraakiilayda aqoonta lahayd hadii way ku jireen waayo qorshaha iyaga u geenay waxaa loola jeeday shacabka iyo ciidanka soo noqday oo dagaalka soo noqday إلى عن قراب صمين الوعي بقرين قليل مركي هدنا هرقيسة عيدن كي قاركي وكون نقضي لحس ركال و مع طببران ودقالك كوشفتي أي هرقيسة اللي وتوكت يعني هو يكون عبسي قليل خير والله يعني عيدن والله يعني إنه بطشي يعني هو كلا وحقوقاتان يعني هو كلا وحقوقاتان هو عجيب مركب وفتي أنا لا يسوي رجعين waxyaabihii la isoo jeediyay waxa way markay ciidankii oo dul mareen oo eegeen oo markay gobolkan bixiyeen ku yahay ogaadeen waxay yiraahdeen waxa laga doonayaa si shacabka iyo ciidanku wax ugu qaataan oo aynu waxaan loo baahnay u sameyn adiguna rag la waayo keen cadaan baadiga marka lagu sheegay ilaahay igu نكساي يقول أنا واثر مقعيسة يما شيء مرة به هو شوغا هو سركال كهذا وقامني أنا هو كان ويلا شوغا بريس يملتري ويسوي شيء قارر وهوي باكوشي مقرن فهم ترى ما لقوش شيء مرة هذه قال هالليا يقول لي أنت صح ولا رجل لايا أنا هو أنت صح ولا ما أراني حق صح الرأي رجل دين بقراي ورجل مقعيسي كم باليري ولا لايا سوى حلو قط أنا وحصل عرنا ماري حبان سمي أنا ماري عيلن كيسو إنكم دجال ما درين باكل معلاني هذا يعني دي هذا دجال ودرتين إنكم كيسو إنكم أنا الدفاعي كتير أو أنت اللي يسكت اللي مروي سو إنكم يوم أورن خصوصا نقول حدود اللي ودبقروشة سمي يوم دفاع كقل حدود ها دي مركي ورنا عمر كاد بحسين بوحيين وكقلي دجال
baan ku yiri markii dambe amarad bixiseen buu ku soo baxay marka anigu rag la laaya ma hayo waxaa dabcan in lagu maaragtay riixo waa diiday anigu damiirkaas ma yeelan karo markaasaan ogaaday jijigana in raggaasi 80 iyo dheeraadkaa lagu laayay hargeysana in 6 sarkaalo kulligood aan arrin lagu togtay sida kuwaas oo kale baa la doonayay marka haddaan saa yeelo oo ciidanku sin dambi lahayn oo anigu aan taliyahoodii ahaa intii dagaalka lagu jiray waa nin Soomaaliya oo wadaniya ahay yani ciidan Soomaaliyeed oo madax u ahayd oo magaciisa iyo waxaa lagu qaato hala keen hala laaye arag waxay la noqotay wax guraan ilma noqon waa tahay hadeena qabano inaan qumara marka wali tagay haddii marxaladda lafteeda su'aal yar oo kala ka weydiiyo ciidanku ciidan soo jaway buu ahaa dib u garashayaal dagaal lagu tilmaamo laakiin xaqiiqada iyo taariikhyahanada adduunyadu sida ciidan soo jaway buu mar haddii ciidankii xoog weynaayo waqooyi ka dagaalamay hadduu soo jaway marka ciidanka wadatay soo waa taangiyadii iyo dayuuradihii iyo magaciisa ku baanka taas waa la isla qirsay laakiin su'aasha doonaya ku weydiiyo waxa weeye niyada ciidanku sidoo ahaa marka haddaad ka soo qaatay ciidanka adu madaxda wuxuu ka cilqabay inta dagaal la geliyay oo la yiri Soomaali waa la xoreynaya haddana in dagaalkii laga soo saaray iyagu de riisanka looga soo saaray waxa ay garanayeen waqti waa askari way niyad jabka intii la doono niyad jabka taariikhdu dabcan waa taariikh aad iyo aad u dheer tafaasiil badanna aad ka haysid marka kama wada gayoonayno niyad jabka ciidanka Soomaalida la soo darsay wuxuu keenay afgambigii ay isku dayeen saraakiil adoodii ka mid ahayd taasi sida u dhacday Cabdi Salaam hadda ilaahi doonaysi anqaraabku marka aan wax xabsiga ka soo baxay waa socday laakiin wuxuu ahaa un ra'is wiilaasho saraakiil dhalinyaro ah wadi saraakiisha Maxamuud Sheekh Ismaan Ero waa ku jiray inay walaalayihiin oo imanka jooga cali baadiye la yiraahdaa waa ku jiray raggii la laayay oo dhan baa ku jiray waxaa yiri marka hadda Charles inqalaab lagu sameeyo baan haysanaa ilaa wal adigoo dagaal ku jiro dadkii Soomaaliyeed baa la xoreynaya leeyahay waxaad samayn karin adigoo laakiin laga raaliya mudane madaxweyne waxa tiri qabanqaabadu way socotay marka xabsiga laga soo daayay dabayaaqadii 75 dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay isku raacsan yihiin waqtigaas inuu ahaa waqti Soomaaliya sida loo arkay ee dadka shacabka u arkay badidooda ay dhaba wanaagsan haysatay horumar ay ku socotay sida loo arkay saraakiishaas maxay saluugsanayeen ogaanta waxay saluugsanayeen saraakiil dhalinyaro ah oo mutacallimiin ah waxay saluugsanayeen horto ma jeclaysan dagaal hadhow ugu jabay in la geliyo marka labaad shuucinimada iyo hanti wadaag iyo Lenin iyo Marx iyo magaciisa may doonay saraakiil wadaniyiin oo Soomaaliya oo badaha isku jirin bay ahaayeen waxa ay maaragtay rabba dalka lagu qasbay taasay maaragtay ka dhigiyeen waa tahay anigu markaan soo baxay fiyaadii saraakiisha madaxdu ahaan jiray iga daayaray way contact gareeyeen waana ila hadleen waxaan ku yiri anigu haddaan soo baxay warba ma hayeen waxa dad haysaan maaragtay wax information wax tala magaciisa wadii sheegi kartaa laakiin in laga fiirsado sama fiicna teeri marka dagaalka la aadi doono dagaalka ciidanka loo dirayo anigu waxaan la urukaatay laakiin haddana in inqilaab la sameeyo niyadayda faaliban ka ah hayeeshe ciidamada kuma jirin anigu kama shaqayn karin xafiiskayga anoo fadhiya fiyaa oo markaan ciidamadii laga saaray oo shacaba oo ku jira kuwii xirnaan jiray iimaan la waasha roweed bay talay weydiin jireen waan siin jiray wixii kale iga baahdaana waa waan jiray laakiin waxaan loo baahnay oo aan meel mari karin oo fashalaya
هسمينا كلها واحد بدن بان انتي دمعنا وحيسكو ديان كجوجيه وايو intaan dagaalkaba la aadin bay fashali lahaayeen oo runtii ninku waa eegaya ma ogtahay mas-uulka oo madaxda ahaan jiray oo tababaran oo uu eegaya maaragtay waxa la rabo in la sameeyo iyo xoogga meesha yaalo dadka uu rabo inaan qalaabo uu eegaya ma ogtahay haddana iyadoo aan fiisan jirin oo waxba jirin hanqa waa kii caynaansha iyo gabayre iyo cabdulqaadir bee lagu dilay oo kale ma garanaysaa iska dhaqaaq un adigoo aan xisaabtamin inqilaab laguma galo dagaalka markii la yidhi waa la aadaya qaar baa ii yimi saraakiishii oo cirra kamidihii oo waxay yidhaahdeen iminka si aan dagaalka ciidanka loogu dirin oo ciidanka loogu soo baabi'in dagaalka iminka aan ka hor tagno nin waliba furuntada loo diro markuu tago inta dib u soo noqdo muqdisho aan soo wada gallo oo aan inqilaabno waxaan ku yiri iyadoo la leeyahay dal iyo dad Soomaaliyeed baa la xoreynaya haddii yani aad ka hor timaadaan oo aad iminka inqilaab isku daydaan haddii khaa'imiin waddanka jiraan khaa'imiin baa laydinka dhigay shacabka Soomaalida xataa raalli kama hadeer shacabku wuxuu u heelan yahay in dadka la doonayo in la xoreeyo iyo dalka la doonayo in la xoreeyo rabaa shacabka fiilinkiisa waa la tixgeliyaa markaad wax qabanaysid anaa ka joojiyay markaas wax isku dayna waana fashali lahaa naaraabo waayo ciidamadii ku tishanayeen kulligood habeenoo madoowa inta labiska laga bedelay oo qoryo yaryar la siiyey yaa la yiri gorilla laydinka dhigayaa ogaadeen yaa la geliyay waxay galeen wardheer waxay galeen qabri dahar waxay galeen dhagax buur waxay galeen goday iyagoo markaa laga dhigay jabhadii Soomaali galbeed laga dhigay wanaga iminka waxa dagaalka waaga la ii diray anigoo dhan jabadeed qabay oo ciidanku dhamay qabay oo ma qaadan jirin maaragtay rankiskii iyo wixii iyo labiskii saraakiisha ciidamada ma qaadan lama ogolaan jabhadiin baan nahay